كان لا يصحي قلد أن قد أو قد بيو سؤاشي سدحدا قدان ترتنك سؤاشي لبعض دركين لي جوابته يكبحيا ومد أن صح أهين هذا يسوى هرير مرتي هلو بورها كوا بورها كوا هلو بورها كوا الجواب سيو بس ورنا نمي بنقدر بإذن الله لبد بيع 5 جرام ريحان وكبر جوابتها بورها كوا صحي قلد أن قد أو قد بيو سؤاشي لوي ترتمياشا دقمدا دركين لي جوابته حليل واجين بورها كبانا كفاديسان ugu tagtay jawaabtay ka bixiyeen waa mid sax ah jawaabtu waa 2.5 gram curiyahanuna waa koober gudoomiyaha buurha kawa aan lamadan dhibcood suudkiisa u dhaxgeliyo waxay su'aasha buurha kawa ayaa iska leh waa su'aasha labada dhankooda waana su'aasha afraad su'aalaha guud ee tartanka buurha kawa sulfur waxa uu sameeyaa laba oxide kamida waxa ku jira 50% culays ahaan oxygen kan kalena 60% culays ahaan oxygen hadaba magacow labada sulfur oxide ah kadibna magacow boqolkiiba inta uu ka yahay sulfurka aan ku celiyo mar kale buurha kaba sulfur waxa uu sameeyaa laba oxide kamida waxa ku jira 50% culays ahaan oxygen kan kalena 60% culays ahaan oxygen hadaba magacow labada sulfur oxide ah kadibna magacow boqolkiiba inta uu ka yahay sulfurka aan ku celiyo marka saddexaad ee ugu dambaysa buurha kaba sulfur waxa uu sameeyaa laba oxide kamida waxa ku jira 50% culays ahaan oxygen kan kalena 60% culays ahaan oxygen hadaba magacow labada sulfur oxide ah kadibna magacow boqolkiiba inta uu ka yahay sulfurka waa rajaynaa inaad garateen hadduu alla idmaad ka jawaabi doontaan buurha kaba waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne halow buurha kaba hello warbaahinta qaranka Soomaaliyeed buurha kaba jawaabta bismillaahir rahmaanir rahiim wanoo tartamiyaasha degmada buurha kaba ee gobolka Baay su'aalaha jawaabtay oo baskideenay banagdaase biidinillah sulfur laba oxide waa boqolkiiba 50 sulfur saddex oxide waa boqolkiiba 40 jawaabta buurha kaba saxi qalad aan gudiga u gudbiyo سؤاشي أفراد قدهان ترتك سؤاشي لبعض بورها كوا جوابتي كبحيا ومد صح سلفر لبا أوكسايد بقول كيبا كونتون سلفر ترى أوكسايدنا بقول كيبا أفرتن iskuul ka amaan aan lamadan dhibcood aan dhigo kalin wata ebook akhrisay ku jiraan waxa tartanka inuu dhamaanayo ma kaliya jabsantahay masax kala jiro may sheekala jirta ha ma xoolo firfircoonidan ka Allah laakiin subaxnimo ma fiicno يلا سؤال دركيلا يا اسكاله هو سؤال
saddexaad ee dhankooda waana su-aasha sanaad su-aalaha guud ee tartanka dharkeenley hawadu markay diirto way fududaataa kor ayayna u kacdaa sida caadiga ah kulaylka qoraxdu dhulka ayuu marka hore kulayliyaa kadibna hawada ayuu u gudbaa hawadaas kululaatay kor ayay u kacdaa wayna qabowdaa marka ay heer sare gaarto waxay samaysaa daruuro roobkeena haddaba sheeg magaca loo yaqaan roobka noocaasa jawaabtana ku sheeg af soomaali aan ku celiya mar kale dharkeenley hawadu markay diirto way fududaataa kor ayayna u kacdaa sida caadiga ah kulaylka qoraxdu dhulka ayuu marka hore kulayliyaa kadibna hawada ayuu u gudbaa hawadaas kululaatay kor ayay u kacdaa wayna qabowdaa marka ay heer sare gaarto waxay samaysaa daruuro roobkeena haddaba sheeg magaca loo yaqaan roobka noocaasa jawaabtana ku sheeg af soomaali marka saddexaad ee ugu dambaysa dharkeenley hawadu markay diirto way fududaataa kor ayayna u kacdaa sida caadiga ah kulaylka qoraxdu dhulka ayuu marka hore kulayliyaa kadibna hawada ayuu u gudbaa hawadaas kululaatay kor ayay u kacdaa wayna qabowdaa marka ay heer sare gaarto waxay samaysaa daruuro roobkeena haddaba sheeg magaca loo yaqaan roobka noocaasa jawaabtana ku sheeg af soomaali waa rajaynaya inaad garateen hadduu alaydmo aad ka jawaabi doontaan dharkeenley waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne halow dharkeenley halo radio muqdisho dharkeenley jawaabta su-aasha jawaabteeda insha allahu tacaala waxay noqonaysaa sida soo socota waa gufaacaale jawaabta ay bixiyeen dharkeenley saxi qalad guddiga ayaan u gudbinaya su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn hadday soo hareer martay halow buurhakaba halo warbaahinta qaranka soomaaliyeed buurhakaba jawaabta bismillahi raxmaani raxiim munood su-aala jawaabtiyo ba ka faa'iidaysnamay banagdaase roob rogmad ku celi roob rogmad jawaabta buurhakaba ee ka faa'iidaysiga ina guddiga aan ku celiyo su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dharkeenley gobolka banaadir ay ka jawaabi waayeen buurhakabana kama faa'iidaysan jawaabta saxda ah cabdullaahi waa sidaas jawaabta saxda ha la sheegahe maa fadhima yaale adama sheegaysi aniga yaa i weydiiye musowe mahayo idinkaan idinka rabaa waayahay jawaabta guddiga ayaan haddaba ka sugaynaa insha allah roobkaasi waxaa la dhahaa dul ka hoor mar kale haddaan ku celiyo roobkaasi waxaa la dhahaa dul ka hoor su-aashan buurhakaba ayaa iskale waa su-aasha saddexaad ee dhankooda waana su-aasha lixaad su-aalaha guud ee tartanka buurhakaba marka hawo diiran iyo hawo qaboobay ay kulmaan hawada diiran ayaa kor u kacda
oo way qabowdaa daruuro ayayna samaysaa kadibna waxay noqotaa roob haddaba sheeg magaca loo yaqaan roobka noocaasa jawaabtana ku sheeg af soomaali aan ku celiyo mar kale buur hakaba marka hawo diiran iyo hawo qaboobi ay kulmaan hawada diiran ayaa kor u kacda oo way qabowdaa daruuro ayayna samaysaa kadibna waxay noqotaa roob haddaba sheeg magaca loo yaqaan roobka noocaasa jawaabtana ku sheeg af soomaali marka saddexaad ee ugu dambaysa buur hakaba marka hawo diiran iyo hawo qaboobi ay kulmaan hawada diiran ayaa kor u kacda oo way qabowdaa daruuro ayayna samaysaa kadibna waxay noqotaa roob haddaba sheeg magaca loo yaqaan roobka noocaasa jawaabtana ku sheeg af soomaali waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmo aad ka jawaabi doontaan buur hakaba waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne halow buur hakaba buur hakaba halow halo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed buur hakaba jawaabta bismillaahir rahmaanir rahiim wanaa tartamiyaasha degmada buur hakaba ee gobolka Baay su'aal jawaabtiyo ba ku wareerinay banagdaasha biidinillah umibah ama umibiyud jawaabta buur hakaba sax qaladan gudiga u gudbiyo su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada buur hakaba jawaabtay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn hadday soo hareer martay halow dharkeenley halo radio muqdisho dharkeenley jawaabta tartamayaasha degmada dharkeenley su-aashan jawaabteeda insha allahu tacaala haddii aan isku dayno waxay noqonaysaa sida soo socota waa gufaacaale jawaabta ka faa'iideysiga dharkeenley aan gudiga ku celiyo su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada buur hakaba ee gobolka baay ay ka jawaabi waayeen dharkeenley oo gobolka banaadirna ka faa'iidays ahaan ugu soo gudubtay jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah roobkaasina waxaa la dhahaa gufaacaale hadool dharkeenley lama dhibcood oo aad sheegteen loona baahnaa dooro lama kalena waa la iska rabaa waa idinsoo tuurna waxaan idin dhigay macmacaanka ee xanyuubka siista dharkeenley lama dhibcood waa hagaag su-aashan waxaa iska leh dharkeenley waa su-aasha afraad ee dhankooda waana su-aasha toddobaad su-aalaha guud ee tartanka dharkeenley abaalmarin caalamiya ayaa la baxshaa sanad walba oo la guddoonsiiyaa qofka ay guddiga u arkaan inuu mudan yahay abaalmarinta si ay dhiirigelin ugu noqoto haddaba waxaad sheegtaa magacyada dhaqaatiirtii ku guulaysatay abaalmarinta caalamiga ah ee soo saaray dheecaanka kala jara silsilada d n a qaybteeda dhexe kaasoo ka qayb qaatay qayb lixaad leh cilmi baarista iyo sanadkii la siiyey aan ku celiya mar kale dharkeenley abaalmarin caalamiya ayaa la baxshaa sanad walba oo la guddoonsiiyo qofka ay guddigu u arkaan inuu mudan yahay abaalmarinta si ay dhiirigelin ugu noqoto haddaba waxaad sheegtaa magacyada dhaqaatiirtii ku guulaysatay abaalmarinta caalamiga ah ee soo saaray dheecaanka kala jara silsilada d n a qaybteeda dhexe kaasoo ka qayb qaatay qayb lixaad leh cilmi baarista iyo sanadkii la siiyey marka saddexaad ee ugu dambaysa dharkeenley abaalmarin caalamiya ayaa la baxshaa sanad walba oo la guddoonsiiyo
qofka ay guddigu u arkaan inuu mudan yahay abaalmarintaas si ay u dhiirigelin ugu noqoto. haddaba waxaad sheegtaa magacyada dhaqaatiirtii ku guulaysatay abaalmarinta caalamiga ah ee soo saaray dhacaanka kala jara silsilada DNA qaybteeda dhexe kaasoo ka qayb qaatay qayb lixaad leh cilmi baarista ee sanadkii la siiyey. waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmaad ka jawaabi doontaan dharkeenle. waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne. Hello dharkeenle hello halo warbaahinta qaranka dharkeenle jawaabta. bismillah alxamdulilah annagoo ah tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir su-aashiina la weydiiyey haddii aan jawaab bixinteeda isku dayno waxay noqon doontaa biidni illaahi alkariim jawaabta oo saxa waxay noqon doontaa magacyada haddaan ku horumarno waxay noqonayaan waa James Watson, Francis Crick, Maureen Wilkins, Rosalind Franklin 1962. jawaabta dharkeenle sax iyo qalad aan guddiga u gudbiyo. su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn. hadday soo hareer martay halow buurha kaba. helo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. buurha kaba jawaabta. bismillaahi raxmaani raxiim. su'aal jawaabtii hoon iska daynamay banagdaate Frankie Harry, Maurice Hu iyo Frederick Wicks iyo James Y 1960. jawaabta ka faa'iideysiga ee buurha kaba ee guddiga aan ku celiyo. su-aashii la weydiiyey reer dharkeenley gobolka banaadir ay ka jawaabi waayeen buurha kabana kama faa'iideysan. abha mujamac la soo baxay waa la ka saafudeed waay James Wook iyo Fak iyo Madalulu Abu Said madalulu Abu Said digaaga total laga tun kuwaas jawaab nooga dhig isku day aniga sug Abu Said ma tiro asaan ku raacsana way ma haysin jawaabta guddiga ayaan ka sugaynaa insha Allah.
degmada dharkeenle ee gobolka banaadir ee jawaabteeda haleeli waayeen buurha kabana ay ka faa'iidaysan weysay jawaabteeda oo saxa waxay noqonaysaa abaalmarintaasi waxaa la siiyey dhakhaatiirta kale ahaa weyne alberte daniel nathanis iyo weliba hamilton smith sanadkuna wuxuu ahaa 1978 mar kale haddaan ku celiyo abaalmarintaas waxaa la siiyey dhakhaatiirta kale ah weyne alberte daniel nathanis iyo weliba hamilton smith sanadkuna wuxuu ahaa 1978 cabdullahi abhaba faanteen maho haddaan meel ku qorano su-aashan waxaa iskale buurha kaba oo su-aasha afraad ee dhankooda waana su-aasha sideedaad su-aalaha guud ee tartanka buurha kaba su-aasha dhagaha loo furo maxaa cabdul ku qosashay ku qosla su-aasha dhagaha loo furo haddaa tira kiintaal inaad akhri doontaa iyo soo baxa allah ka naxsan bacaaw ma aqaano ma'da iyo macna maqas ku xumeynaya ay ka tahay haweenka ugu dambeysa oo ku soo dheereynayaan marka buurha kaba su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan soo socota cilmi baaris lagu sameeyey kor u kaca ku socda dal bismillaahiyo cilmi baaris lagu sameeyey kor u kaca ku socda dadka dunida ku nool ayaa waxaa la qiyaasay inay dadku gaari doonaan tiro 9 bilyan ah sanadka 2050 qiyaastaasi wuxuu walwal iyo walaac geliyey culimada ku takhasusay cilmiga beeraha iyagoo sheegay inay dhici doonto cunayari baahsan qubradan waxay bilaabeen sida ay uga hortagi lahaayeen cunayarida la filayo inay dhacdo 2050 sidaas darteed waxay bilaabeen inay ka soo saaraan nacfiga ku jira nooleyaasha ilma aragtida haddaba waxaad sheegtaa saddexda barshin waraabe ee ugu isticmaalka badan inta lagu guda jiro soo saaritaanka nacfigan aan ku celiyo mar kale buurha kaba cilmi baaris lagu sameeyey kor u kaca ku socda dadka dunida ku nool ayaa waxaa lagu qiyaasay ama la qiyaasay inay dadku gaari doonaan tiro 9 bilyan ah sanadka 2050 qiyaastaasi waxay walaac iyo walwal gelisay culimada ku takhasusay cilmiga beeraha iyagoo sheegay inay dhici doonto cunayari baahsan qubradan waxay bilaabeen sida ay uga hortagi lahaayeen cunayarida la filaayo inay dhacdo 2050 sidaas darteed waxay bilaabeen inay soo saaraan nacfiga ku jira nooleyaasha ilma aragtida haddaba waxaad sheegtaa saddexda barshin waraabe ee ugu isticmaalka badan inta lagu guda jiro soo saaritaanka nacfigan marka saddexaad ee ugu dambaysa buurha kaba cilmi baaris lagu sameeyey kor u kaca ku socda dadka dunida ku nool ayaa waxaa la qiyaasay inay dadku gaari doonaan tiro 9 bilyan ah sanadka 2050 qiyaastaasi wuxuu walwal iyo walaac geliyey culimada ku takhasusay cilmiga beeraha iyagoo sheegay inay dhici doonto cunayari baahsan qubradan waxay bilaabeen sida ay uga hortagi lahaayeen cunayarida la filaayo inay dhacdo 2050 sidaa darteed waxay bilaabeen inay ka soo saaraan nacfiga ku jira nooleyaasha ilma aragtida haddaba waxaad sheegtaa saddexda barshin waraabe ee ugu isticmaalka badan inta lagu guda jiro soo saaritaanka nacfigan waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmaad ka jawaabi doontaan buurha kaba bartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa kama baaqsanayne waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne halow buurha kaba
hello warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. buurha kaba jawaabta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi tatimmu bi ni'mati salihat wa nooca tartamayaasha degmada buurha kaba ee gobolka Baay. su'aalaha jawaabtiyo basidayna may banagdaasa biidhnillah. Kilmini, mushroom, white button, iyo portobello. jawaabta buurha kaba saxi qalad aan guddiga u gudbiyo. su-aashii sideedaad guud ahaan tartanka su-aashii afraad ee buurha kaba jawaabtay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn. hadday soo hareen martay halow dharkeenle halow halow dharkeenle halo dharkeenle jawaabta. ku tartamayaasha degmada dharkeenley su-aasha nala weydiiyey insha allahu tacaala haddii aan isku dayno jawaabteeda waxay noqonaysaa sida soo socota. su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa insha allah waa agaricus bisporus 2 lentnas edodas iyo 3 oo ah beliratus sb. jawaabta dharkeenle ka faa'iidaysiga ayana aan guddiga ku celiyo cabdallah. su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada buurha kaba ay ka jawaabi waayeen dharkeenleyna kama faa'iidaysan. cabdulla mushrim madam qajaa ku soo dhax ya mushrim labada barshin waraabe barshin waraabe horta sidaada haddaan maqla barkin dhaanyeeree saa igu soo dhaca aniga laakiin barshin waraabe cuntuleeda ya ku quraacatay ma ku quraacata bisinko weligayba wax usuud shuqul ku leeyahay kumana quraacan kumana cashay magaca arta waa laga bedelay ay waa la casriyey hal loo baxshay عدة كقرعة مع قطر وبحسن مركي الوشة وراك دلبنة مشروم الله مشروم واعنا كاس لا لا ما مرش وراه مشروم جوابت هذا قد جاي كسبنا إن شاء الله. وهجاك سؤال اللي ودي ترتمياش الدجمة بورها كبا يكجواب وين ركين لين أكفى إذا سوي سي جوابتي ذو صح وحين قنيسة ومرشيلا ففريلا يأكاريكاس markale haddaan ku celiyo waa morshella foforiella iyo acaricus. ani waxaan buliyaabana 9 milyan dadka disgaaro beeraha dhan ciwiray naqanayaan ha see beeraha ciwir ku naqanayaan 9 bilyan ha beeraha ciwirta dadku waa shaqeysaan tacabka ma yaraha tacabka beeraha yaraha ilaaha ka faala qaad وهجاك سؤال من أفرح أو درتو لكن جيتو وحا حسوس مدن انت مدى دركين لي قيب كمدى السؤال شان اي شيء من أفر سؤال يعني ويدينه ودرتو زيت هلا بدأ الدقمة نحتال غير مجري دون ما دام فاينل وياي ومناسبة دي حيرتان كترتان كأي قدال جيري دون تهدو على إدمو نحتال يرو كوان كدي بانسكو سؤال الله بنينا وهجاك نحتال كي أيام كجرنا كستو صنديران دونين عبد الله يا أبها هي عتكب هذا سؤال هذا بعد فور فايدة وكديب هذه فين الواي معنا وركم بنانا هديروا بدأ دانسة ما هواية عبد الله أبها سؤال هذا ما نقول أفعلها أريا ما إذا كوا حد كرتي ما ورم أنا لكن فور فايدة وكديب قلنا هذا بنو مايا فور فايد كاقول أنا لا يلحد من مية ولا حرلا وكا حطت إفانتي حطت إيش كده شيء كذا مركا الله بالله في كورنتدي الله هو ما عبد الله أبها سؤال هذا ودونها محلها مدو عاوز سعادة لواتنا سما يعني ترتك سوبني جمعية عم بلاوني رمضان كوبا جمعية سكالبريوا هدو إلهي جمعية كاش أفرها كشنات كي شنات طبعا سيار لواتنا نقرأ يا عاوي نوتها مرشان جمعة سقالي لباتنا waxaa soo aragteen degmooyin kala duwan واصح waad habeen degmo taageerayseen caawa waxaan joognaa gabagabadii dabcan ramadaan hadduu dhammaado waxaa jira asxaab bisha ramadaan inta lagu jiro asxaab kula ah واصح markii ramadaan laga baxo laakiin iyo kadib aydan is arkeen oo dadka asxaabta tartan ku tahay واصح marka caawa waxaan rabaa ma dhahay cabdulle abbaa su-aala la soo weydiiyey
سوى نود عينيسين أنا سوي ديها عبد الله يموس وحر وعاون الدعيان سيب عبد الله ميا عبد الله ما أذان كوديمني ما سوى هالدعاء ما يعدي عبد الله أنا حبيت مو سوى ذاك أنا وين كارت ندعي مو سوى هل يلا بدها ما ندعي ملاك horta waxaa la yiri khayr horta Allah nooga waxa aan soo marnayba آمين رمضان كان duco waa sideeda duco waa durow inkaarna waa dhimo warka badi maayo ilaahay muraadadeena hasa muraadada muslim Allah hasa sharta shaydaanka allow naga xijaab ilaahow naga aqbal soonka iyo salaada iyo sadaqada iyo sakooyinka iyo dhamaan ilaahay كورونا يا عذرها يا بلايد الله نجا كرقاضو أبارها الله نجا كرقاضو خير يا رب إله نود بأسي عندك وحيين إلهي يو خير بركة نوجدك إلهي يو نودم بالضعف هو أدو دم بالضعف تنجدك هو عذاب تلقى حرية نقدر جنة الفردوس الله بلن قاعد نقدر والله قد بشاري عذاب تنلقى حرية شرية شيطاننا إلهي يو نجا حجاب اللهم صل على سيدنا رمضان كان رمضان كيسنا إلهي أنا قلنا نبض بش هي برواقو هي براري إلهه نجو جارسي إلهه نجو جارسي إلهه نجا أكبر إلهه نجا أجيب إلهه نون حريصه دات كمساكين تا إن لو برجارو إلهي هنتص دات كحولا هستو دات كمارك تديرتا إن هذو برجارتين الله هيدين تص إلهي هيدين بركة يحولهن إلهي هيدين بركة يحولهن إلهي هيدين دم بدافو إلهي إذن كيس اللهم صل على سيدنا محمد موسى ولا بلا أنا وحان كفكرة يا دكسي والفتح روا فصحى جرا أفتح واي أفتح هذين نمو بروس إي وحوار كل الدقي دقح بروس دقح وكل الدقي واصح ولا سنتي بيجنا وحان مخلي وسوء شيء رمضان يا عيد بلا وهذا هذا ما سنتين عبد الله يا ابو هذا احتال كي يعني طبعا الكاك سجرنا عبد الله يا حمك دري ما وايه وهاي نحتاج كأن سيام بقاضي أنا وحنا عبد الله وعذر دارنا يا بهاي الفيسبوك طبعا هذا ندي هو جواد وشيء جدا لكن عاو ما دام وفينا ليه وأنا وجدنا عاو إني صوبتين هذا يقول بدني الدربي سجبيه مركب وقتي أنا هاي مناسبة حرتان كود طبعا قال نجح حتى أوجد وحن طبعا كعذر دارنا أنا جواد الشيء دورن إن شاء الله حقاق أن دب وصلات الأحتال كان سيام بقاض أن هو بين لو دب نقاتي كوتشران هلا وبورا كبا ما سنين دق ماذا كان هلا ودركين لي هلا وراديو مقدشو سؤال دركين لي أسكال وسؤال شنادة دكود وأنا سؤال سقالات سؤال جودة ترتك دركين لي سؤال دقاها وفروا وسؤال حسابه عبد الله دقاها على فرو هذه دلالة صندوق له مجا وجوين هدي وضرت بيتك دوشة صندوق وتهاي لحظني 4 سنتيمتر لبجبارن جوابته كوب بحاجة جبته ولا سدح قد لا لنسو بحليه الباقي أنا كوشاك سنتيمتر أنكو عليا مركز دركين لي هذه دلالة صندوق له مجا وجوين هدي وضرت بيتك دوشة صندوق وتهاي لحظني 4 سنتيمتر لبجبارن جوابته كوب بحاجة جبته ولا سدح قد لا لنسو بحليه الباقي أنا كوشاك سنتيمتر مركز دعادة وجود ما يصدر كين لي هذه دار صندوق له مجا وجوين هدي وضرت بيتك دوشة صندوق وتهاي لحظني 4 سنتيمتر لبجبارن شبابته كوب بحاجة جبته بالله صدح قد لا على نسو بحيه الباقي أنا كوشاك سنتيمتر ورجاني أنا تقرأتين الدول لإد ما تكتش شبابي دونتان دار كين لي وحبرتان برواق قارني
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan 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 barwaaqo gaarane halow dharkeenley dharkeenley halow halo warbaahinta qaranka dharkeenley jawaabta bismillaah alxamdulilah annagoo ah tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir su-aashii xisaabta ahayd haddii aan jawaab-bixinteeda isku dayno waxa ay noqon doontaa biidni illaahi alkariim 32 sentimitir jawaabta dharkeenley sax iyo qalad aan guddiga u gudbiyo waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn waayahay hadday soo hareer martay halow buurakaba helo warbaahinta qaranka soomaaliyeed buurakaba jawaabta bismillahi araxmaan araxiim rabbi yasirna walaa tucasirna su-aala jawaabtiyo ka korna namay banagdaase 74 centimeter cubic waayahay jawaabta ay ka faa'iidaysahaan u bixiyeen buurakaba ayaana guddiga aan ku celiyo su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dharkeenley gobolka banaadir jawaabteeda haleeli waayeen buurha kaban kama faa'iidaysan haddii labada dimaba garan waayaan jawaabta guddiga ayaan ka sugaynaa insha allah su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dharkeenley gobolka banaadir jawaabteeda haleeli waayeen buurha kabana ka faa'iidaysan weysay jawaabteedu sax waxay noqonaysaa dherarku waa 3,266 sentimitir ballacuna waa 3,266 sentimitir jooguna waa 3,266 sentimitir mar kale haddaan ku celiyo joogu waa 3,266 balcuna waa 3,266 sentimitir joogu waa 3,266 sentimitir su-aashan waxaa iska leh buurakaba waa su-aasha shanaad ee dhankooda waana su-aasha tabnaad su-aalaha guud ee tartanka buurakaba raadi mugga sanduuqa ugu weyn ee wejiyadiisu barbaro la yihiin sallaxyada kulannada haddii lagu dhex sameeyo qabaal eke isla egtiisu tahay 16 xa laba jibaaran loo geeyey 4 ya laba jibaaran loo geeyey 9 zad laba jibaaran waxay la mid tahay 144 jawaabta ku bixi jajab 10 laba godle ah lana soo buuxiyey halbeegana ku sheeg sentimitir 3 jibaaran aan ku celiya mar kale buurakaba raadi mugga sanduuqa ugu weyn ee wejiyadiisu barbaro la yihiin salaxyada kulannada haddii lagu dhex sameeyo qabaal eke isla egtiisu tahay 16 xa laba jibaaran loo geeyey 4 ya laba jibaaran lagu daray 9 zad laba jibaaran waxay la mid tahay 144 jawaabta ku bixi jab 10 laba godlaha lana soo buuxiyey halbeegana ku sheeg sentimitir 3 jibaaran marka saddexaad ee ugu dambaysa buurakaba raadi mugga sanduuqa ugu weyn ee wejiyadiisu barbara la yihiin salaxyada kulannada haddii lagu dhex sameeyo qabaaleeke isla egtiisu tahay 16 ama 16 x laba jibaaran loo geeyey 4 y laba jibaaran loo geeyey 9 zad laba jibaaran waxay la mid tahay 144 jawaabta ku bixi jab 10 laba godlaha lana soo buuxiyey halbeegana ku sheeg sentimitir 3 jibaaran waa rajaynaya inaad garateen haddoo alaydna aad ka jawaabi doontaan buurakaba waxbartaan 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 barwaaqo gaarne
nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne halow buurakaba halo warbaahinta qaranka soomaaliyeed buurakaba jawaabta bismillaahi araxmaani araxiim wanooe tartamayaasha degmada buurakaba ee gobolka baay su-aalaad jawaabtiyo baskudinamay banagdaase biidinillaah sagaali kow dhibiye eber siyeed sentimeter 3 jibaaran jawaabta buurakaba saxi qaladaan guddiga u gudbiyo su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada buurhakaba ee gobolka baay jawaabtay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn hadday soo hareer martay halow dharkeenley halo warbaahinta qaranka jawaabta su-aashaas jawaabteeda waxay noqon doontaa haddii aan isku dayno jawaabta waxay noqonaysaa insha allahu tacaala 700 ama 7,241.14 sentimitir 3 jibaar jawaabta ka faa'iidaysiga ah ee dharkeenley aan guddiga ku celiyo su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada buurhakaba ay ka jawaabi waayeen dharkeenleyna kama faa'iidaysan hadday labaduba garan waayeen jawaabta guddiga ayaa laga sugayaa insha allah su-aashii la weydiiyey reer buurhakaba ay ka jawaabi waayeen dharkeenleyna ka faa'iidaysan weysa jawaabteedu saxa waxay noqonaysaa 110.85 sentimitir 3 jibaaran mar kale haddaan ku celiyo jawaabtu waa 110.85 sentimitir 3 jibaaran warjeenay meel lagu wada qortay su-aashan dharkeenley ayaa iskale waa su-aasha lixaad ee dhankooda waana su-aasha 11aad su-aalaha guud ee tartanka dharkeenley nasab ahaan cabaasiyiintii dunida islaamka soo xukumayay waxay ka soo jeedaan cabaas bin cabdilmudalib oo ahaa nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee adeerkiis inta aysan si toosa u soo shaabixin khilaafadii cabaasiyiinta waxay bilaabeen hogaamiyeyaashii nidaamka cusub inay u gogol xaaraan nidaamkooda ugubka ah ayagoo dacwadooda si qarsoodi ah uga bilaabay dalka urdun muddo kadib hogaamiye moxamed bin cabdulaahi bin cabaas ayaa dalka ciraaq ka dhigtay xarunta khilaafadii cabaasiyiinta ee ku bilowga ahayd haddaba sheeg sanadkii uu moxamed bin cabdulaahi bin cabaas magaalada kuufa ee dalka ciraaq ka dhigtay xarunta nidaamka cusub ee cabaasiyiinta taariikhdana ku sheeg hijri ahaan aan ku celiyo mar kale dharkeenley nasab ahaan cabaasiyiintii dunida islaamka soo xukumayay waxay ka soo jeedaan cabaas bin cabdulmudalib oo ahaa nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee adeerkiis inta aysan si toosa u soo shaabixin khilaafadii cabaasiyiinta waxay bilaabeen hogaamiyaashii nidaamka cusub inay u gogol xaaraan nidaamkooda ugubka ah iyagoo dacwadooda si qarsoodi ah uga bilaabay dalka urdun muddo kadib hogaamiye moxamed bin cabdulaahi bin cabaas ayaa dalka ciraaq ka dhigtay xarunta khilaafadii cabaasiyiinta ee bilowga ahayd haddaba sheeg sanadkii uu moxamed bin cabdulaahi bin cabaas magaalada kuufa ee dalka ciraaq ka dhigtay xarunta nidaamka cusub ee cabaasiyiinta taariikhdana ku sheeg hijri ahaan marka saddexaad ee ugu dambaysa dharkeenley nasab ahaan cabaasiyiintii dunida islaamka soo xukumay waxay ka soo jeedaan cabaas bin cabdulmudalib oo ahaa nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee adeerkii inta aysan si toosa u soo shaabixin khilaafadii cabaasiyiinta waxay bilaabeen hogaamiyaashii nidaamka cusub inay u gogol xaaraan nidaamkooda ugubka ah ayagoo dacwadooda si qarsoodi ah uga bilaabay dalka urdun muddo kadib hogaamiye moxamed bin cabdulaahi bin cabaas ayaa dalka ciraaq ka dhigtay xarunta khilaafadii cabaasiyiinta ee bilowga ahayd
haddaba sheeg sanadkii uu maxamed bin cabdullaahi bin cabaas magaalada kuufa ee dalka ciraaq ka dhigtay xarunta nidaamka cusub ee cabaasiyiinta taariikhdana ku sheeg hijri ahaan waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmaad ka jawaabi doontaan dharkeenley waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne halow dharkeenley halo warbaahinta qaranka jawaabta bismillaah alxamdulilah annagoo ah u tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir su-aashiina la weydiiyey haddii aan isku dayno jawaab bixinteeda waxay noqon doontaa biidni illaahi alkariim sida soo socota oo ah jawaabta oo dhamaystiran haddaan isku dayno insha allah waxay noqonaysaa waa sanadka markuu ahaa su-aasha jawaabteeda waa 132 hijriyada jawaabta dharkeenley saxi qalad aan guddiga u gudbiyo su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn hadday soo haleer martay halow buura kaba halo warbaahinta qaranka Soomaaliya jawaabta bismillahi الرحمن الرحيم سؤال الجواب فيه بكورنا نمي بنغداسه باذن الله boqolkii hijriyada jawaabta ka faa'iideysiga ee buura kaba aan guddiga ku celiyo su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ay ka jawaabi waayeen buurha kaba oo gobolka bay ugu tagtay ka faa'iideysi ahaan jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waxayna ahayd 100 hijriyada markay taariikhda islaamka ay maraysay ama hijriyada ay maraysay sanadkii 100aad buurha kaba lama dhibcood meeqa sacan aamusnay cabdulow hadda nabarkaasoo foqa waxdaho maxay ka wadaan barofesoorka iyo macalinka sintifiga jamalayba noogu dhigeen wixii dhane jamalaadkaasi aqoontaa la yiri xiritaag baa dhima dhibcaha meel dheer buu wadaani gudoomiye cumar finis jacakadiisas ugu jira tartiibta ka qaata waayahay su-aashan waxaa iska le buura kaba waa su-aasha lixaad ee dhankooda waana su-aasha 12 su-aalaha guud ee tartanka buura kaba nasab ahaan cabaasiyiintii dunida islaamka soo xukumayay waxay ka soo jeedaan cabaas bin cabdilmudalib oo ahaa nabiga naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee adeerkiis inta aysan si toosa usoo shaac bixin khilaafadii cabaasiyiintu waxay bilaabeen hogaamiyaashii nidaamka cusub inay ugu galxaaraan nidaamkooda ugubka ah iyagoo dacwadooda si qarsoodiha uga bilaabay dalka urdun muddo kadib markii ay wax kasta diyaarsadeen hogaamiye cabdullaahi al-saxaaf wuxuu ka baxay isqarinta isagoo masjid jaamaca kuufa ka iclaamiyey curashada khilaafada cusub ee cabaasiyiinta wuxuu dagaal la galay khaliifkii ugu dambeeyey ee umawiyiinta marwaan bin moxamed iyadoo cabaasiyiintu ugu dambayntii masar ku dileen marwaan bin moxamed haddaba sheeg sanadkii ay cabaasiyiintu dileen marwaan taariikhda ku sheeg miilaadi ahaan aan ku celiya mar kale buura kaba nasab ahaan cabaasiyiintii dunida islaamka soo xukumayay waxay ka soo jeedaan cabaas bin cabdilmudalib oo ahaa
nabiga naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee adeerkiis inta aysan si toosa u soo shaaca bixin khilaafadii cabaasiyiinta waxay bilaabeen hogaamiyaashii nidaamka cusub inay u gogol xaaraan nidaamkooda ugubka ah iyagoo dacwadahooda si qarsoodi ah uga bilaabay dalka urdun muddo kadib markii ay wax kasta diyaarsadeen hogaamiye cabdulaahi al saxaaf wuxuu ka baxay isqarintii isagoo masjid jaamaca kuufa ka iclaamiyey curashada khilaafada cusub ee cabaasiyiinta wuxuu dagaal la galay khaliifkii ugu dambeeyey umawiyiinta marwaan bin moxamed iyadoo cabaasiyiintu ugu dambayntii masar ku dileen marwaan bin moxamed haddaba sheeg sanadkii ay cabaasiyiintu dileen marwaan taariikhdana ku sheeg miilaadi ahaan marka saddexaad ee ugu dambaysa buurhakaba nasab ahaan cabaasiyiintii dunida islaamka soo xukumayay waxay ka soo jeedaan cabaas bin cabdilmudalib oo ahaa nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee adeerkiis inta aysan si toosa u soo shaaca bixin khilaafadii cabaasiyiinta waxay bilaabeen hogaamiyaashii nidaamka cusub inay u gogol xaaraan nidaamkooda ugubka ah iyagoo dacwadahooda si qarsoodi uga bilaabay dalka urdun muddo kadib markii ay wax kasta diyaarsadeen hogaamiye cabdulaahi al-saxaaf wuxuu ka baxay isqarintii isagoo masjid jaamaca kuufa ka iclaamiyey curashada khilaafada cusub ee cabaasiyiinta wuxuu dagaal la galay khaliifkii ugu dambeeyey ee umawiyiinta marwaan bin moxamed iyadoo cabaasiyiintu ugu dambayntii masar ku dileen marwaan bin moxamed haddaba sheeg sanadkii ay cabaasiyiintu dileen marwaan taariikhdana ku sheeg miilaadi ahaan waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmaad ka jawaabi doontaan buurhakaba barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa kama baaqsanayne waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne halow buurhakaba halo warbaahinta qaranka soomaaliyeed buurhakaba jawaabta bismi illaahi araxmaan araxiim allahuma yasirna walaa tucasirna su-aalaad jawaabtayo baskadaynamay banagdaase biidn illaah 750 miilaadi jawaabta buurhakaba saxi qaladaan guddiga u gudbiyo su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada buurhakabe gobolka baay jawaabtii ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn hadday soo hareer martay dharkeenley halow dharkeenley halo warbaahinta qaranka jawaabta su-aashan jawaabteeda insha allah waxay noqonaysaa sida soo socota haddii aan su-aasha jawaabteeda isku dayno waa 700 haddii aan isku dayno insha allah waxay noqonaysaa 746 miilaadiyada dharkeenley jawaabta ka faa'iidaysiga ay bixiyaan iyana aan guddiga ku celiyo su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada buurhakaba ee gobolka bay ee ka jawaabi waayeen dharkeenley oo gobolka banaadirna u soo gudubtay ayana kama faa'iidaysan jawaabta guddiga ayaa laga sugayaa insha allah su-aashii 12aad ee la weydiiyey tartamayaasha buurhakaba ee gobolka baay ee ka jawaabi waayeen dharkeenleyna aysan ka faa'iidaysan jawaabteedu waxay noqonaysaa cabaasiyiintu waxay dileen marwaan bin moxamed sanadkii milaadiga markuu ah 749 marka haddaan ku celiya cabaasiyiintu waxay dileen marwaan bin moxamed sanadkii 749 milaadiya labada degmana
waa soo wada dhaweeyeen inkastoo buura kaba aad u soo dhaweysay oo kontonka ay dheer su-aashan waxaa iskale dharkeenley waa su-aasha toddobaad ee dhankooda su-aasha 13 su-aalaha guud ee tartanka dharkeenley danab xadigiisu yahay 400 kuulam ayaa maray gudbiye amin 13 daqiiqo iyo 20 sekan ah haddaba waa maxay itaalka danab hayaanka ee maraya gudbiyahaasi aan ku celiyay mar labaad su-aasha dharkeenley danab xadigiisu yahay 400 kuulam ayaa maray gudbiye amin 13 daqiiqo iyo 20 sekan ah haddaba waa maxay itaalka danab hayaanka ee maraya gudbiyahaasi marka saddexaad ee ugu dambaysa dharkeenley danab xadigiisu yahay 400 kuulam ayaa maray gudbiye amin 13 daqiiqo iyo 20 sekan ah haddaba waa maxay itaalka danab hayaanka ee maraya gudbiyahaasi waa rajaynaya inaad garateen hadduu aleed maad ka jawaabi doontaan dharkeenley waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne halow dharkeenley halo warbaahinta qaranka dharkeenley jawaabta bismillaah annagoo ah u tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir su-aashiina la weydiiyey haddii aan jawaab bixinteeda isku dayno waxay noqon doontaa insha allah eber dhibic 5 ambier jawaabta dharkeenley saxi qaladaan guddiga u gudbiye su-aashii 13aad guud ahaan tartanka su-aashii 7aad ee degmada dharkeenley jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah waa eber dhibic 5 ambier haddoo dharkeenley lama dhibcood oo qurxan oo sharfan oo aad sheegta waa soo tuurna dabakaayo madooba idinta alla hasa riib ka siista lama dhibcood dharkeenley su-aashan buuraka waayaa iskale waa su-aasha 7aad ee dhankooda waana su-aasha 14aad su-aalaha guud ee tartanka ama su-aashii ugu dambeysay su-aalaha tartanka ee caadiga ah kuwaan caadiga ahayn ma oga diligeli doona haddii kale cabdultaas ma saas waa buurakaba waa imisa itaalka danab hayaanka ee maraya gudbiye haddii danab xadigiisu yahay 5,000 kuulam uu maro gudbiyahaas amin 2 saac iyo 30 daqiiqa aan ku celiya mar kale buurakaba waa imisa itaalka danab hayaanka ee maraya gudbiye haddii danab xadigiisu yahay 5,000 kuulam uu maro gudbiyahaas amin 2 saac iyo 30 daqiiqa marka saddexaad ee ugu dambaysa buurakaba waa imisa itaalka danab hayaanka ee maraya gudbiye haddii danab xadigiisu yahay 5,000 kuulam uu maro gudbiyahaas amin 2 saac iyo 30 daqiiqa waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmaad ka jawaabi doontaan buurakaba waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa
shay kama baaqsanayne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne halo buuraha kaba hello warbaahinta qaranka soomaaliyeed jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونوع ترتمياشا دقمة بوركبا قبل كباي مامل كفنفر قلبت سؤال الجواب تيو بس دقنا ما يبنى داشا بإذن الله إبر إذي كونتونيشن أمبير jawaabta buuraha kaba sax iyo qalad aan guddiga u gudbiyo waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada buurhakaba ee gobolka baay ee dalka soomaaliya jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waana eber dhibic 55 ama eber dhibic 6 ambiyer bravo lama dhibcood oo kaali arag annakana maanta oo buur ha kabaysan maanta annakana tahniyada waxaan sugaynay hal xaba in la siiyo afartan xabaa noola daadiyey war waxaan ku dhahay dhulka dhan wada u waxas naqday waaga sheekadaas ma ka soo saa micnaheed lama dhibcaan heli waayo cabdulaahi calas yacabkowaana uu dhiibi sitees ku qaadi buur hargaway taala waa hagaag su-aalo min 7 ah wadartooda 14 tahay ayaan weydiinay labada degmo ee caawa ku tartamaya halkan oo kala ahaa buuraha kaba oo ka tirsan gobolka baay iyo dharkeenle oo gobolka banaadir ah waxaad naga sugtaan waa natiijadii tartanka waxaa xusid mudan marka natiijada la shaaciyo kadib waxaa jiri doona daawadayaasheena sharafta leh iyo dhegaystayaasheena oo munaasabadii xiritaanka tartanka oo si rasmi ah dual eedma ay usoo xiri doonaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho عمر محمد محمود عمر فينش iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed cabdixayir maare laakiin waxaad sugtaanba daqiiqad kadib natiijada tartanka kadib munaasabadii xiritaanka oo dabcan jidkii tartanka uu soo maray aad kula socon doontaan insha allah faido kala baxa warka la isbarayana faido kala baxa gobol isku faniyo degma ficta weeye degma ficta weeye gobol isku faniyo degma ficta weeye gobol isku faniyo degma ficta weeye warka la isbarayana faido kala baxa warka la isbarayana faido kala baxa gobol isku faniyo degma ficta weeye gobol isku faniyo degma ficta weeye gobol isku faniyo degma ficta weeye gobol isku faniyo degma ficta weeye
golayaasha furaaniyo fagaaraha isugu taaga golayaasha furaaniyo fagaaraha isugu taaga warka la isfarayana faa'iido kala baxa igana u fiirsada gobol isku faaniyo degmo degmo ficta weeye 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 golayaasha furaaniyo fagaaraha isugu taaga golayaasha furaaniyo fagaaraha isugu taaga warka la isfarayana faa'iido kala baxa igana u fiirsada golayaasha furaaniyo fagaaraha isugu taaga golayaasha furaaniyo fagaaraha isugu taaga warka la isfarayana faa'iido kala baxa igana u fiirsada gobol isku faaniyo degmo degmo ficta weeye 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 golayaasha furaaniyo fagaaraha isugu taaga golayaasha furaaniyo fagaaraha isugu taaga warka la isfarayana